mar haddii waxa wax lagu geysanayo ay dareeska ciidanka yihiin waxay meel ka dhac ku tahay ciidamada qaranka waxa la aqbali karo waa wax ceeb iyo fadeexada qof kasta ee uu qof tuutaha gashan oo dhac u geesto qof shacabahoo dareeska gashana ay dhacay male xitaa qof dareeska gashana ay dhacay kuma ekaysanaayo ama idila kuma ekaysanaayo wuxuu leeyahay ciidanka dawladda oo tuutaha dawladda wata ayaa i dhacay idilay taas waxay meel ka dhac ku tahay sharafta ciidanka waxay meel ka dhac ku tahay waqtiga aan bixinaynay iyo guud ahaan waajibaadkii iyo mas'uuliyadihii aan u haynay qaranka Soomaaliyeed iyo bulshadeena sidaas awgeed waxaan hor yaala oo laga maarmaan ah waxay tahay sideen xal ugu heli karnaa sideen u maaray karnaa sideen meesha uga saari karnaa dhacdooyinka noocaas oo kale sideen meesha uga saari karnaa dareeskii ciidamada in lagu dhibaateeyo bulshada oo sharaftii ciidanka meel looga dhaco waxaan isu nimaday hay'adaha kale amniga waa wada fadhiisanay waa ka hadalnay waxaan isu sheegnay qaybaha ayaga quseeya iyo talaabaha ay tahay in ayagu qaadaan iyo qaybaha anaga na quseeya iyo talaabaha ay tahay inaan anagu qaadno maxay yihiin marka talaabaha inaan qaadno ay tahay mar haddii wax laga shaqeynaayo amni yihiin mar haddii wax laga shaqeynaayo ay yihiin muxuu ahaa ii sheeg magaalada intaas oo bulsho ay ku nool yihiin mar hadday waxa dhibka lagu geysanayo ay yihiin dareeska ciidanka wuxuu qayb ka yahay amni darradii magaalada waa la hadlay waxa la yiri war amniga ma la sugo waa hadalna waxaan dhahnaa adinka intaana tira la egtihiin intaanoo saraakiil had leedihiin intaanoo meelooda joogtiin waay amniga sababta ay sugu leedihiin maxay tahay sababta aan sugu laana waxay tahay waxa socda askari wuu tuutaysan yahay qorayo wata dareeska militariga wata gaari cabdibilaahu saaran yahay si xad dhaaf oo u socda xaafadihii u dhaxmara hadaad qabato adiga baa cili kartaa uu ku leeyahay bari hadaan dilno waxana la leeyahay muxuu ahaa ii sheegay ciidanka militariga hay'ad disheen amniga adinka idinka sugu laana waxaan rabaa marka xubin kasta halkaan fadhis unit ku doon ha joogo ka bilow taliska guud ilaa hoos u daadaji talisyada noocyada ciidamada ilaa unit ugu hooseeya laga bilaabo maantay ma doonayno askari xooga dalka Soomaaliyeed oo suuqa lugaynaya oo magaalada iyo xaafadaha iyo laamiyada lugaynaya ee darees iyo hub isku wata inaan aragno ma rabno waxaan rabnaa in la xakameeyo waxaan u baahanahay in loo xakameeyo si buuxda gebiyahanba oo meesha ka baxdo haddii ay dhacdo xitaa hadduusan wax dhicin xitaa hadduusan fal gacanta kula jirin waajibaadkan iyo amarkan haddii la bixiyo ee ay gaarto ee uu fuli waayo ee ay dhacdo in suuqa lagu qabto asigoo dareeskii iyo hubkii ku wata magaalada dhexdeeda wuxuu la mid yahay kii wax dhacay waxay nooga dhigan tahay xeer ilaalintana way joogaan maxkamadda way joogtaa waa u sheegnay waxay nooga dhigan tahay qofkaas inuu u baxay inuu qayb ka noqdo amni darrada magaalada ka socota waxay nooga dhigan tahay in uu u socday inuu fal geesto waa ognahay dhibaatooyin badanaa jira ciidamo ayaa waxay jiraan furmaha waa dareemi karnaa xaaladda jirta ma dhihi karno furunta uu ka soo tagayo qorigiisa hadhigo xaaladda jirta awgeed because wadada soo marayaba abni ma aha wuu ku qasban yahay inuu furunta qoriga ka soo qaato laakiin waxaan u baahanahay taliyaha halkaan jooga iyo taliyaha unitka laga soo fasaxay qofkaas inay coordination ka dhaxeeyo inay wada xiriirayaan inuu yiraahdo 5 askariyaan soo fasaxay saacadaas oo soo fasax waqti habelay soo galay marka ay soo galaan inaysan xaafadahoodii aadin taliska xamar ugu yaala waa inay yimaadaan waa inay hubka dhigaan waa inay dariiska dhigaan kadibna waa inay xaafadahooda aadaan